aniga hadda jaa maxamed shoobinkiisa waa sii qaaday maxamed aabihiis mi maqshaa dooqayga sahwaay carwadan oo gaar noqon doonto caruurta laguna magacaabo Nasiib Baby Fashion aadna ka heli doonto agab kasta oo caruurtu u baahan tahay ayaa xarunteeda cusub laga furay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaana carwadan gaar ka ah caruurta degmada ku soo kordhiyay Nasiib ama Kaag oo ah gabar kamid ah dhalinta reer Gurceel waxaana carwadan xarga ka jiray gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada Gurceel Cabdirasaaq Cabdullaahi Faarax alxamdulillaah rabbil caalamiin ama bacd gudoomiyaha jaamacadda Safana ganacsadii Cabdullaahi way arag iyo walaasheen Caaisha awlan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxa farxad noo ah in aan galabta ka soo qayb galno xafladda xarig jarka dukaankan quruxda badan ee aad u jeedaan ay furatay walaasheen Toreesa Caaisha loogu magac daray Nasiib Baby farxaday noo tahay in aan ka soo qayb galno waana dhiirigelinayna waana garab istaagaynaa ganacsatada yar yar ee deegaankan dumarka ah xirfadan quruxda badan bilaabay waxaan rajaynaynaa insha Allah taala hadii ilaahay idmo in dukaankani uu noqdo dukaan la tartamo dukaamada baby shop-yada ku yaala Xamar iyo Dubai intaba waan rajaynaynaa kaalintii looga baahnaa deegaankan inuu ka soo bixi doono waxaan aragnaa in dhammaan la isugu keenay qalabkii baby shop-ka ee looga baahnaa degmadan waa dukaan dhameystiran qalabeysan qurux badan dad xirfad lana ay joogaan waan rajaynaynaa insha Allah taala inuu guuleysto Caaisha waa ku hambalyeynaa إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنه دكان كان بركوبه جوليستو بيزنس كان بلا وجهك هذا إن شاء الله تعالى وحرجينا إنه جوليستو إن شاء الله تعالى فرعي بدن أو يلدون مقدشة أو يلدون دبي أو يلدون إن شاء الله تعالى سيدا أقرعال بوجب بلاضي وسفر دير وبلاوي كوبات واسكودي وحن كورجينا إن هذا نيت جبن إن شاء الله تعالى إنه جوليستو بيزنسكو وكوميتمنت وإعلان والتزام وأديك وروح بدن وحن رجينا إن شاء الله تعالى سيدا إمام قبط وروح بدن ده شغلهم إنه وروح بدن هذا إن شاء الله وما سنتك صاحب قليات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidoo kale waxa goobta hadal ka jeediyay ganacsato aqoon-yahano iyo waliba qaar kamid ah dadkii ka dukaameystay carwadan runtii farxad ay noo tahay inaan ka soo qayb galno xafladda xarig jarka dukaanka ama shirkadda Nasiib Baby oo lagu tala galay in lagu adeego caruurta ku nool degmada Gurceel ee nawaaxigeeda runtii sharaf iyo weyn ay noo tahay waxaan dareemaynaa kaalinta noocan oo kala wakaan loo baahnay haddii qof kasta oo Gurceel ah uu ku dadaali lahaa in kaalin noocan uu buuxiyo oo uu fiiriyo magaalada kaalinta ka banaanay oo buuxi lahaa magaalada dhan way dhismi lahayd wayna qurxanaan lahayd ganacsiguna sare oo macnaha u kici lahaa laakiin dhibaatada waxay noqotay in wixii hore u yaalay lagu soo celceliyo muhiimadu ma ahan wax hore u yaalay inaad keentid hal abuurka ayaa lagu tilmaamay inuu yahay inaad wax cusub soo kordhisid ama wixii yaalay aad qurxisid laakiin ma ahan wixii dariska ay hayeen inaad keentid ma aha hal abuur ma noqonayso waxa hal abuur noqonaysa sida Nasiib Baby oo kale dukaan ah oo fursad magaalada ka maqnada in la keeno dadka kale ee deegaanka iyo maaragtay ganacsatada soo koraysa ee deegaanka joogtana waxaan runtii ugu baaqayaa in fursadaha deegaanka ka maqan ee aadka u fara badan ay keenaan ganacsatada deegaanka hore u joogtay ay kala tashtaan sidaan oo kale ay u buuxiyaan Nasiib waxaan leeyahay abti Allah ku barakeeyo ganacsigaadana Allah barakeeyo laakiin waxaan rabnaa inaad kula dardaarmo inaad mid ka ilaalisid midaas waxay tahay ganacsi waxa ugu daran waxa waa irid xiran waa irid xiran iyo deynta oo la baxsho labadaas ugu daran dadka deegaankana runtii labadaas ay caan ku yihiin sidoo kale inay noqdaan waxa uu accountability oo xisaab leh inay noqdaan markaas waxay noqonaysaa ganacsiga kor u kaco Nasiib runaantii waxa waay waa aadan u bogaadinayna Toreesa Caaisha waxa waay waa carwadan Nasiib Baby ay furtay waa oo hambalyeynayna oo bogaadinayna aad baan ugu faraxsanahay insha Allah waxaan ka mid noqon doonaa customer-ka carwadan insha Allah waxa way baahi badan oo deegaanka ama baahi gaab badan oo jiray ay buuxin doontaa insha Allah waxaan rajaynaynaa kaalintaasi inay ka soo bixi doonto oo wax walba ama dalab walba yimaada in la heli doono oo ku saabsan wax caruur ku saabsan beenan meeshan laga weynaa rajaynaynaa insha Allah waxaan joognaa furitaanka carwada cusub Nasiib Baby Fashion Center oo nalagu furay degmada Gurceel hadii aan dadka reer Gurceel waa soo dhaweynaynaa waxaan ka helay kulay aad iyo anfacayo konfal kistan oo loogu talagalay caruurta 6 bilood iyo wixii ka weyn waa cunto aad u nafaqaysan oo caruurta u fiican hal lagu soo dhawaado caanahan sidoo kale kaalshiyam badan ay leeyihiin ilmaha awoodaysiiyaan waa kulay caano magaaladu ay ku cusub yihiin hadda koor ma aanan helin marka caanahaas lagu soo dhawaado Nasiib ayadana waxaan leeyahay Nasiib wacan ganacsigaada Allah ku barakeeyo waa ku faraxsanaynaa noloo furo baby shop kan waa ka caruurta ku ciyaaraan
طبعا قاين نفارة مشاردة معمعانك إيه مساعدها ورودك محمد أوديجو يا ويل كيركا عصاص عضو حمد حياة إن شاء الله ويدودوا أمرنا هبرتوا هاي ويلكم أصحابك سود وهذا نصيب بيبي وأكفر حسنا هاي إن انقلبتك سوقيب قلو فريتانكا نصيب بيبي فاشيون وأمرك يجوه رئيسي عرون عن قرآل غفرة قرآل وهم بلينا كفا إيديستان أنا هذا الشاب محمد شوبين كيس وثيق هذا محمد أبيس مي مقشاع دوقي سهواي راجل على واحد اللي جالس كان كفا إيديستا أباي وحنا ليه هاي جناح هذا عصب له كوبر كيو فرصة بنانات أيا نوقف في إيديسة أنا إنسان ولا حرادي تشاو waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo nasiib baby fashion kanoo kale hadda waa shkumaanka oo ilmaha yarka oo meesha lagu liidanayo markay dhashaan laga heli jirin awal gurceel caruuriyo ku ahay kanoo kale waxa waaye ilmaha oo markay fadhibalkiina lagu fariisinaa sidoo kale waa laga heli jirin degmada hadda inoo soo kordhisay waxaan leenahay walaashay nasiib baby fashion ganacsigaaga Allah ku barakeeyo asxaabta gurceelna ku soo dhawaada carwada nasiib baby fashion ugu dambeyn nasiib ama kaaga oo ah gabadha furtay carwadan ayaa warbaahinta Rachel la wadaagtay fikirka cusub ee ku dhaliyay inay furto carwadan magacaygu waa Aisha Xuseen Makaak maanta waxaan joognaa dukaankii nasiib baby shop carwadii oo nasiib baby fashion oo wax badan sugayay in la furo waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudoomiye Cabdirasaaq macalin daahir iyo ganacsade Cabdullaahi oo maanta ka soo qayb galay xarig shirka xafladan waa ku maadsiinay ayagana sida quruxda badan ay ugu dhiirigeliyeen waxaan rajaynayaa dhammaan bulshada reer Gurceel ama reer Galguduud ama reer Galmudug oo dhanba inay ka faa'iideysan doonaan agabka carruurta oo dhameystiran ayaa meeshan ku soo kordhinay maadaama magaalada ay ka jirtay baahi meel carruurta looga adeego oo meel loogu hagaaga carruurta aysan jirin haday ahaan lahayd baabuurtii carruurta lagu wadi lahaay haday ahaan lahayd caanihii ilmaha masaasadihii noocyada kala duwan haday ahaan lahayd kuwa ilmaha lagu fadhi barayay agabka carruurka oo dhameystiran dadkii xamar ka doona jira waxaan leenahay ugu kaaleeyo Gurceel idinka oo safar u galin idinka oo qarashan kaga bixin meel dheer waxaan idin rajaynayaa inaad halkan ku soo hagaagi doontaan waana ku mahadsantihiin dhammaantiin waxaan rajaynayaa nasiib baby fashion inay ka faa'iideystaan dadka reer Gurceel iyo dhammaan reer Galmudug oo dhan soo dhawaada asxaabteen